When did Somaliland oy ka go'day Soomaaliya? Somaliland iyo Soomaaliya Talyaani waa ka baxayay, Ingiriiska waa ka baxayay. Waxaa lahayd aan soo celino Soomaalida dhan isku wada keenno. Markaas Somaliland waxaa ka jirtay 3 party ka jireen. Mid waxaa la jiray USP la jiray, United Somali waxaa la jiray United Somali Party la jiray. Kuwaas kuway ahaayeen iyo 2 kale ta jireen. Saddexdii laba ka mid ah waxay dhaheen Soomaaliya ka darsoomeen, hal ka mid wuxuu yiraahdaa may kuma darsoomeen. Dadka soo marka weligood waa jirtay dad ma ku darsameen dhahayaan, dad ku darsameen jiraan Somaliland weligood waa ka jirtay. Wax cusub maaha. Markay imaadeen in waxay dhaheen kuwii aan ma ku darsameen dhaheen okay waan laga xoog badiyay dhaheen waa ku darsamoonaaye wax annaga hanal siiyo. wax annaga wax awoodda hanoola qaybiyo. awoodda hanoola qaybiyo markii ay dhaheen hayaa lahay. Okay. Haye markii la dhahay aadan cadde yaa madaxweynaha ugu horreeyay u ahaa. aadan caddaa la doortay markaas. aadan caddaa madaxweyne loo doortay. aadan cadda markii madaxweyne loo doortay Cabdirasaaq waxaa la yidhahdaa Cabdirasaaq Xaaji Xuseen nin la yiraahdo yaa ma aragtay iyo prime minister u doortay. Marka waxaa la rabay madaxweyne markii kan uu siiyo Soomaalidan dadka degan markii madaxweyne ay qaataan prime minister in la siiyo la rabay Soomaaliya dadka dhinacaas degan Soomaaliya. You can extend a fair in al naqdo. birtaa loogu dhufta dadkan gasaa loo siiyey. So marka that's why they separated. That's why That's why that makes sense. So birtaa loogu dhuftay. Okay. Ayaa waxay dhahan okay haye waa xogaa waa la yara xanaaqay laakiin haddana waxay dhaheen okay kan waa dhacday han la moodo. Okay. Han la moodo midkan Soomaali dhahin. Haddana madaxweynihii yaa wuxuu ma aqaan wax dhacay haddana waxaa la yiri ra'iisul wasaare kale haddana uu soo dooranaya. ra'iisul wasaaraha kale uu soo dooranaya haddana ma ahayn markaan waa laga qaleeyay markaan birtaa lagu dhuftay markaan ayaga in la siiyo soo ma ahayn. Mate, Mohammed, okay, it's okay. We let's just make things al theory mission. Did they represent themselves, Ika? What do you mean? That can okay. So had the elections we have candidates that come from every state. Oh, not every state, but like we have Bernie Sanders representing Vermont, Massachusetts. What's her name? And Ishak. And Elizabeth Warren. Yeah. El Paso. That's one man, one vote. Why? Kasi one man, one vote. Why? Maya, they're representing the United States, but lacking as a قفل مهسك إماري their state وشيء. So I know you're going to represent Somalia, but like in a حق so بحذر represent yourself. But like I know you're going to stand for this country, Somalia. Maybe we can't just say maybe ملسك ده هاي or had خف ما كصباحي did he represent himself or مركز مال الديري كاس خلط واي. بالك هدي بخوف لسه represent بقول قفها جوكتي بقول قفها لدوران كلا ميشان وحالوه شيء هاف أو كلا قاعدنا ناسي كل شيء واي مرك ساس الله ده again من ذكرته وحان أنت أنا كسر أنت أنا ما عرفتي وحان مقلي too many versions مقلي too many things or like كندا عادي لكن وحي معقول قال إلى النقطة يوم بعد هذا أنا هان أن ما بقولنا مثلا لازم هان لكن وحى أصليه هاي كنا runta ugu dhow markii aan dhowr qof aan wareystay oo baaritaan badan aan sameeyay inta igu dhow aan ka hadlayo midka. So far the way had any like on fasir hooyo what you have told me وحواي that they were that or representative Somali مقدش joogin هدي معنا ولا أركي that's why قبهاين ولا أركي okay وحكوا ده معناه ضد ما كجيل ولا قد دورت عملها
waa ku jireen dadkii la dagaalameena jireen aawe dadkii maaragtay dad halkaas ka imaada dabcan dad la-aan ma jiraan dad oo macnihii waxaa ka wadaa dad oo maaragtay u tartami karaan meesha ma jiraan qualify ma jiraan waa jiraan of course waa jiraan qualify oo sheegan what they're going to make the difference wadanka kordhinayaan yes oo sheegan oo laga diidiyaa waa jireen waa anaa ku sheega waaba jireen waa jireen laazim waa dad wax bartay lagama weyn ayagaa markaas dad wax bartay ingiriiskii la joogeen Soomaaliya ingiriiska gumaysan jiray Soomaaliya ahayn so ingiriiska dadku gumaysan dad wax bartay aan jirin badankooda dadka wax bartay aan jirin but why then why because ma sababta ma garan karo ma aqaani sababta uu ogolaadeen ma garan karo anyway adiga kadib waxay dhaheen okay midaan waan dhaaftay mid kale waxaa la yiraahdaa aan sugnay dhayn tokada kaleeto tokadii kale la sugay adan caada haddana madaxweyne wuxuu soo doortay muxuu ahaa prime minister kaleeto soo dadkii hore ka tagay mid kale madaxweyne ma prime minister ka dooraha ya mar walba madaxweynaha prime minister ka doorto okay waxaa la rabay inuu hadda marka geeskan inuu aadiyaa la rabay moogtahay nin Cabdirashiid Cali Sharmaarke la yiraahdo soo doortay daro soo qabsaday ninka Cabdirashiid Cali Sharmaarkena nin dhinacaasi ka soo jeeda ma ahan ee waa dhinaca ninka qaybtan hoose ka soo jeeda waay south ka soo jeeda waay north ka ma aha oo dhinacaas ka soo jeeda ma aha bas waxay ku qaybsanayna ma aqaanin waliba al'aana 4.5 qabiil ku qaybsadaan waxaan dad xayawaano waay dad maarag wali ma gaarin heer ma aragtay one man one vote la ma jiraan marka kadib waxaa dhacday shacab shmaak marka la doortay asaga asaa la soo doortay kadib adaacadda uu ka tagay meesha Cabdirashiid Cali Sharmaarke hadda madaxweyne noqday markaan hadda wuxuu sameeyay markii ugu horreysay waaye qof halkaas ka soo doortay marka okay madaxweynahan iyo door hooya madaxweynaha qofka dooranaya ma aqaan xaqiiqada ma garan karo markaas ma aqaan laakiin marka Cabdirashiid Cali Sharmaarke mid kale lahayd madaxweyne labaad waayaa madaxweyne labaad marka la doortay markaanu hal nin oo dhinacaas ka soo jeedo cigaal la yiraahdo uu soo doortay markaas laakiin sa ahaatee marka saas markii dhacday kadib haddana waa la siiyey okay xaaladda waa kala degtay haddana waxyaalo kale taa bilaadeen oo dadkii macnihii waxaan ku sheegay 3 group ahaayeen 3 oo muxuu ahaa oo party ahaayeen labo kamida waa ogolaayeen hal kamida diidanaa halkii kamida diidanaa weli waa diidanaa weligiisna wuu diidanaa inuu Soomaaliya kula jirnaado so halkii kamida waxay bilaabeen inay maaragtay dhahaan waa ka go'aynaa waa ka waxaysmaynaa saan waaye they have reasons now reasons ma arkaysan wax lagu sameeyay sidaana dhacday anyway again wuxuu soo wada waxa inta ka gather gareeyo waa inta haayo waa so far is this history is it written it's not written inta qof oo la hadlay qofkii dadkii ugu macquulsanaa oo aan la hadlay primary source waa ma lii karo maya okay waxa laga yaabaa inay waxba ka jirin laga yaabaa waxba ka jirin laakiin intii aan ka waxaysma qof walba story-gan qof walba taa qoran karo qof walba wax qoran karo mood history the winners write history qofkii dadka win garayaan mar walba try garayaan history right so history laftirkeeda buugta la qoray laftirkeeda xataa runay baan waxaan ilaha og the winners always write the history marka waxay sameeyeen waa la siiyey kadib kuwaas kale weli waxay wadaan oo marno anaga we can be kaliya noqon karaa independent rabnaa kadib waxay sameeyeen muxuu ahaa kadib waxaa imaaday Cabdirashiid Cali Sharmaarke waa la dilaa umalaynayaa waa la dilo madaxweynaha waxaa imaaday Maxamed Siyaad Barre markaas dowlad military waaye so dowlad military waaye dowlad military muxuu ahaa dadka dhan waa u sameeyeen dadka waxay siiyeen qofkii dowladdaasi ka soo horjeestaa gacan adaga lagu qabanaya soo maaha so dowladdii militariga ahayd because kuwa kaleeto waxay aan kuwa soo doortay iyo wax in la doortay waxayna moogtaa marka military hadda imaaday so military maadaama hadda imaaday wada xaajood kaleeto iyo waa go'eynaa iyo ma go'eyna iyo shakadaasi ma jiraan qof walba oo ka soo horjeesada dowladdaas militariga gacan adaga lagu qabanaya so marka dowladdii
Okay. dadkan waa dad qaarkood aa dagaalameen waa waxaysmeen waa la dagaalameen so dowladda militariga ahayd meeshii tagtay hargeysa tagtaa la dhahay dad badan again midaan kuu sheega haddana So this is ma aqaani haddana waa ku celinaya primary source ma waa ma dhihi karo. waxaa dadka qaarkood waxay leeyihiin muxuu ahaa labaa jirta marka laba waxyaalood ay jiraan dadka qaarkood waxay leeyihiin intaasoo kun oo qofaa la laayay oo shacab ah oo macnihii si macnihii waxaa noola baabi'iyey si annagaa noola socday like si annaga waxaa la rabaa in hargeysa dhan la baabi'iyo eber qof walba laga dhiga hal qof oo ka noolaada inuusan jirin. Really? dadka qaarkood saasay leeyihiin dadka qaarkoodna waxay leeyihiin muxuu ahaa wax qof la inka taabtay ma jiro qof la inka dila ma jiro waxa dhan aan sheegaysin been waay dadka dhexdhexaadka waxay leeyihiin run waaye dadkaani waa la laayay dadkaani waxbaa lagu sameeyey wax badanaa xaqdaraa lagu sameeyey hase ahaate keligood kumuusan dhicin qof walbeeta oo dowladda ka soo horjeysto dowladdana dowlad macnihii dowlad military waay qof soo voodgareeyey qof waxeeyey ma jiraan macnihii sanadkan waa la voodgareynayaa hala baxo 4 sanaa dhammaatay waa la voodgareyn ma jirin so qof walbeeta waxay dad qaarkood waxay leeyihin oo annaga xitaa biyaha ceelasha sunnoo lagu shubay annaga xitaa maalin beeta gurigana lagala bixi jiray albaabkana lagala bixi jiray guryahana lagala bixi jiray dadkana la layn jiray marka soo dadka qaarkood dadka dhexdhexaadkan dadka saasa ka arkay waan dhici kartaa dad dhinacan kale tajir dhinacan mar walbeeta waa taqaanaa wax markay dhacaan dadna geeskii aadayaan dadna gees kale aadayaan dadna dhexda ku jiraan kulligood ma wada qaldanaan karaan waa dhici kartaa mid ka mida ma saxnaan karaa waa dhici kartaa inay saxan yihiin so that is the story markii awoodda markii lagu waxay oo dad badan laga waxayay 1991kii dowladdii Soomaaliya markii burburtay now hadda dowladda Soomaaliya maadaama ay burburtay isla markaas ayaga waxay dhaheen oo waxay aan raadinayna waa qof maanta naga hor istaagi kara ma lahan inaan independent inaan noqono waa ka baxnay kadib maasha allah gooni u baxeen waa kuwaas waa aragtay governmentiga samaysteen waa kuwaas systemkooda samaysteen muxuu ahaa ii sheeg muxuu ahaa nabad abuurteen the mission and goal ay lahaayeen and they established it but like weli adduunka ma ictiraafsano weli adduunka ma dhihin oo Somaliland dowladdu waayo wadamanka badankooda waxay leeyihin oo Soomaaliya I have an interesting question so that is why markuu arkaysaa marka qofkii dhahaa dowlad ma tihiin haddii ay marka qofkii markii Soomaalidan kaleeto dadkan la xirxirayo oo dad waxaynayaan waa dadka dhahayaan oo waxa ma tihiin dowlad ma tihiin saan ma tihiin dadkaas dadka af waxaynaya waay marka adiga qof awalba ma arkino asaga wuxuu raadinayaa Soomaa waxaysan yihiin ii sheeg muxuu ahaa dowladaan hanay dhahoyeen Soomahan aaminsan yihiin marka wixii oo ictiraaf raadsanayaan dowlad waayihiin dad nabad waayihiin laakiin maadaama ay ma arkino ay weli ay wada xaajoodkii weli ku jiraan adiga ahaan ay ka hadlaysid intaad caysid oo waxaysid oo aad staan ma tihiin haddana inaad u tagtid waa laga sii fiican yahay midda kaleetaa jirta waxay tahay adigana dhinaca Somaliland dhinaceedana haddii aad dowlad tahay oo is og tahay inaad dowlad tahay cunug xun oo social media wax ka sheegay ama gabar yaroo social media wax ka sheegtay shouldn't concern you inaad ka fikirtid inaad wax siisid inaad appetite siisid inaad idaacado siisid inaad adduunka tustid inaad freedom of speech inaad haysanin inaad siisid waa laga fiican yahay laftirkooda so yeah I agree so I want to ask you something so ilaahi makaso like hadda haddii say something ku imaaday wadanka Somaliland I don't know anything just say something from your head right now waxle meelaha gubteen ayaan dhaxalsi dhacday okay will the government of Mahala Somalia take part in
Soomaaliya maya Soomaaliya ma bategi karta Soomaaliya No? qof Soomaali dowladeeda ku jiro xaggaas ma bategi kara waa dowlad ma bategi kara xaggaas qof Soomaaliya dowladeeda ku jiro ma bategi kara xaggaas Okay. why ma tegi karaan They're not allowed? no Okay. they're not allowed All right, that's interesting. Very interesting. This is interesting. very But controversial Yeah. topic why We're running out of time, almost 1 hour and 36 minutes aan hadloonaa, but I would love to inaan ogaado Djibouti si uu go'day Somali. another day Do you know that? History ma ku say? I know yes You waa have ka to- hadlaynaa waa ka inshallah hadlaynaa, inshallah. Yeah, I Stay did. tuned. It could be part 3, The episode, the episode third one? 3, yeah, episode Inshallah. 3. We could maybe waxaan ka hadlaynaa how Djibouti way u go'een. are we becoming politicians at the time I'm not. politicians no, politics well, Gilliam this- Mariam politics well, politician. This is history. yeah This is history. It's not politics. Soomaaliya dhibaatada jirtaa waxay tahay mataqaanaa Soomaaliya dhibaatada jirtaa waxay tahay I mataqaanaa actually- politicians waxuma jiraanbo markii aad ka dhahdeed oo waxaanan ka hadlayaa ama kanan ka hadlaya marka dhahdeed isla markii qabiil uu noqonaya Sensitive. While qabiil isku bedelaya people want to be. so that's why waxa ma ka hadli kartid wax even Waa wax isdifaaca isla markaas. historic or rasmi sheeko caadi hadda ka sheegto mataqaanaa oo kana jira cadow aadan lahayn aad samaysanaysaa Yeah. waxaadan jirin marka iyo waxaadan loo joogin badda la gelaysaa so this is kind of more as I said we said asaan kuu sheegnay Yeah. podcast waaye chill waaye waxayna lagu honestly I brought up this topic aniga keenay oo maanta ku weydii Yeah. how this Hargeysa separate or say Somalia so go'ay and ku weydii adaa dhahday Hargeysan taga our next vacation and anigana I heard Hargeysa maxaa lahaa you can't talk anything you want they don't have freedom of speech so guys I brought this topic up and I really wanted to ogaadan rabi and out of like for education purposes even education purposes هذا right now ما لو استعمال كره because محمد وحستهويا كان wax la sheegi waayo wax oo qoran ba maahin so it's not a primary source so maanta hadda I have to take محمد وحسدهاي with a grain of salt yeah yeah because كل بينس نخكرها because wax qoran ba maaha right yeah so for education purposes la iska dheh oo grain of salt unku qaado why on and rabo and interested in I love Very history interesting, yeah. I love history and I'm so happy manto kana Yeah. yeah. I'd love to know about Djibouti yeah but inshallah markalente I want to learn more I wish I did books I'm curious Hargeysa book مقرن in Hargeysa do you think books in a books ay qoran of what happened to them waxyaalaha oo lagu suubi but even if let us know even if they write books as they Quran magaranaysaa it's kind of like their version of their book. version well Yeah. that's why I'm saying so right it's not gonna be like well every book khofki kharab it's going to be his version he's going to be biased okay yeah bias is nakhna but do you want to bias I think do you want like everyone Muhammad do you want khofki to biased information I think I don't I would just want to see everybody's viewpoints khofol Good point. bishiga ina Good arka ina point, ugadan rawa yeah yeah it would be very interesting hadi book asjiro let me know I'm going to read that book Amazon hadi laga helayo yeah all right okay inshallah stay tuned for the third podcast next Inshallah. Friday inshallah we will see you there inshallah inshallah take care guys peace bye